أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي mahadiis waa daan markale hawada kusoo laabanay anagoo wanaag isfarin xumaad iska reebayna. waxaan u socotay xalaqaad aan kaga hadlaynay social mediaha dhibaatada uu leeyahay ayaan ka hadlaynay. waxaan hore usoo sheegnay social mediaha oo aan Soomaalida haddaan nahay aan si xun u isticmaalno. marka ugu horeysa inuu diinta uu khatar ku yahay, diinta ayuu khatar ku yahay. maxaa yeelay qofka muslimka waxaa xukuma diintiisa waxay amraysa ayaa walidaalika diinta waxayna amartay inaan macaasida la jahrin. macasi aa samaynaysid oo ilaahay subxaana wa tacaala raan ka ahayn, gabar qaawan ama nin foolxun waxa uu ku hadlaya ama dad iscaynaya is aflagaadeynaya inay khatar u tahay arrintaas diinta ayaa diiday. qofka muslimka markaas waxaa la doonayaa inay hogaanka ay u hayso diinta. haddii hogaanka uu diinta ka furto waxay noqonaysaa qofka inuu markaas dhumo. waan aragnaa waxaan nidhi diinta qaybo badan ugu soo horje ayuu dhib ugu keenay. marka ugu horeyso wuxuu kaga keeni karaa dadka 24 saac way fadhiyaan, cibaado ma tukadaan, cibaado ma sameeyaan, salaad quraan ma akhrinayaan. maanta dhan social media ku jira, ama WhatsApp ku jira, ama Snapchat ku jira, ama Facebook ku jira. maanta dhan wuxuu ka mashquulina cibaadada Ilaahay subxaana wa tacaala. arrintaas diinta ma ogola. qofka Ilaahay subxaana wa tacaala waajibaad oo saare oo salaada ugu horeysa ama ay ku matahay inuu naftiisa ruuxa ka dhiso oo ah inuu quraan akhriyo, inuu tasbiixsado, inuu dikriga Ilaahay u hayo. dadka waxaas ku mashquulsan cibaadada waa kala fogaadeen. idan diinta wuxuu dhim halkaa. dhinaca kale kaga dhimo diinta waxaan niri wuxuu kaga dhimay dad waxaa arkaysaa cibaadadooda soo sawiraya, tawaafkaasuu ku jiro soo sawiraya. wuxuu ku leeyahay hadda masaajidka galaya, masaajidka soo sawir wax kastoo Snapchat-kaasuu soo geliyey, meeshaasaa maraya, dharka waa iska bixiyey, gurigaasaa maraya, gurigaasaa cunadaasaa cunay. diinta ma ogola taas. ayadana waxaa arkaysaa wax kasta aad samaynaysa dee riyaa ka dhigtid, khaasatan markay cibaado tahay dhibaato weyn. waxaad ogaataa waxa kastoo diinta kaa reebtane, wax kasta oo diinta ay reebtane waxaa reebaysa sidoo kale nafta ayay dhibaysaa. diinteena waxay ku dhisan tahay maslaxadda addoomaday ku dhisan tahay. hadduu qofka muslimka ah oo diinta xafidi waayo maslaxadiisa waa dhammaanaysa. diinta waxay ku taagan tahay waxaa kamid ah xifdu diin usuulka kuliyat alqamsa dhahayo xifdu diinka waxaa soo raaca xifdu nafsi. nafta in la ilaaliyo waajib wey. nafta ilaalinteeda dhib u keenay. maxaa yeelay nin baa wuxuu samaynayaa nicmo kasta oo ilaahay siiya ayuu soo bandhigayaa. cunugiisa qur-aanka xifdiyey video kasoo duubaya, hadhow wuxuu ku leeyahay cunugay ilaa ku dhacday. nicmo waa ilaahay ku siiyey. looguma talagelin inaad rayaa iyo ugu faantay reer hebel in hebel qur-aanka uu xifdiyey. dhibaa cunugaas soo gaari kara. aye cunno soo karsatay ayaa bisinka u qabanin ayaa soo bandhigaysa. xaleed dadka arka cuntadaasaan karsaday. dhar cusub soo xiratay ayaa keenaysaa. gaari cusub soo gadataa tusaysaa. cunug u dhashaa meesha soo gelinaysaa. Facebook soo geline, WhatsApp soo geline. marka waa dhibaato weyn. naftaada dhibaa u yimid. wadaalika ilaahay subxaana wa tacaala laa tuqu anfusakum ila tahluka. naftaada tahluka ha ku ridina la yiri. in alcayna xaq uu nabiga ish waa xaq uu nabiga calayhi salaatu wasalaam. war nicmadan ugu faanaysa dad haysanin hadaarti in lagu sacbiyo lagu yiraahdo khatara tahay waa mushkilo weyn. walidaalika camaasha oo cibaadada qaasatan waa laga ilaaliyaa. rawe cunug quraan xifdiyey iyo cunug qurxoon iyo wax ilaahay nicmo ku siiyay inaad dadkana ugu faantid ma la ogola. taas diintu waxay u dhimtay. xagga dadka waxay ugu dhimtay, nafta waxay ugu dhimtay. usar ayaa ku baabaayay, guryaha ku dumaya Facebook waxyaabaha aad samaynaysaan. maxaa yeelay ninkii iyo naagtii isqabay maanta dhan waxay iska raadinayaan Snapchat. meeqa dacwaana soo gaartay oo ku dhahaysa ninkayga waan raacay meeshuu joogo, ama aniga waxaas iima sheegin. musawiradaas wax soo geli islaantiisu musawiradeeda wuxuu ku arka dad kale ee u dir saaxiibadeeda u dirtay, gabdho kale u dirtay. gabdhihii gabar is yaqaanaan, wiil walaalkooda ku jira, wixii qaadana wixii afaafay. ummada guriga ku dumay, guryuhu dumiya Facebook Snapchat-ka iyo waxaa arkaysaan. gabara guriga iska fadhido, ninkeedii asraartiisa ka sheekeynaysaa, gurigii ka sheekeynaysaa. waa imaanaysaa waxay ku leedahay saas ayaa ku dhacay, ninka saasuu igu sameeyey, kan saasuu igu sameeyey. war sirta ilaahay subxana wa taala qalay gurigan arka ku nooshihiin. ilahay wuxuu leeyahay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. macquul ma tahay xaas aa qabtid inay ka sheekayso firaashka waxaa ku samaynayseen ee Facebook ay la timaado.
ma ilaahay ka cabsanaynin ma kula tahay nin xaaskiisa inuu ceebeeyo uu rabo halkan uu keeno dadka dhan waxa dhan waxay noqotay marka joogay noqotay qosla laga dhigtay guriga ugu dumeen idan xaggaas diinta dhinacaasna xaaraamay kaga tahay cawradii ayaa banaanka diinta waxyaabahay diinta waxay tahay zinada faaxisha diinteena nabiga calays lam yakun faaxishan walaa muftashan lacaan may nabiga calayhi salatu wasalaam nin weyna arkaysaa wuxuu ku hadlaya haddaad afkiisa ka soo islaan weyn oo ilaahay subxana watacaala waqtiga u tooba keelineed ugu jiro oo la raba ilaahay inay u laabato oo la raba inay ayaa waxay soo qaadan iyadoo qaawan ama iyadoo xataa hadday qaawanayna kuwa iyagoo inay soo daboolaan afka xun ka sheegayo diinta ayaa waxaa dhaqatay waxaa dhibaatada le waxaa ka mid ah diinta laga doodayaa dadaa ahli u helna diinta ka doodayo diinta waxay naqatay ila tali diinta maxay ka qabtaa nina wuxuu ku leeyahay diinta maxay ka qabtaa tali isii kan isii tan war diinta ila tali ma ah diintan axkaam iyo cilmi la u baahan tahay fasalu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun diinta diin muran ma aha jadalka waa diida nabigu waa diida diinta taa baratid inaad dood ugu gashid aad tirahda ila doodaya kaale oo maanta isku dirtid culamaa la caynaya dad wanaagsan waa la caynaya madax waa la caynaya yaa ku banay waxaas malaa'iga kaa qoraysa karaama kaatimiin ay kaa qorayso ayuu haddii diintaada uu kaa daya dhinaci aflagaada halkaa usoo taaganta iyo reer nina maanta dhan qabiil ammaanay ninkaa qabiil kala caynay war qabiilkaasoo dhan hadday qiyaama kuusoo saftaan nabiga calayhi salatu wasalaam ilahay waa noo sheegay dulmiga ma ogolo dadka aa caynaysid dadaa ku jiro wanaagsan walidaalika walaa taziru waasiratun wasir ukhra nin wuxuu sameeyey qabiilka dhan looma qaban karo ama madaxweyne ha ahaado ama ha ahaado nin kala aado nin wuxuu sameeyey asaa loo qabanaya dembigiisa laakiin hal nina khaasatan madaxda ugu daran reerkiisa dhan wax laga sheegaya beri qiyaamaha ilahi subxana wa tacala walaa yaktab axadukum qiibada ilahi waray soo maha ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhihi maytan fakarihitumuuh imaam qurtubi iyo keyrkood waxay dhahayaan ninka waxaa leeyahy intuu qof oo xantaa qiyaamaha loo keenaya asoo naar lugaha ugu jirto waxaa leeyahy dadkan hilibka ceerinka walaalkaa cunaa la leeyahy qabiil dhan inaa cuna doono qiyaamaha maxaa dhec maanta dhan afkiisa saas weye dembiga ninka galaha loo qabanaya looma qabanayo qof qabiil looma qabanayo walaa aabihiisa loo qabanin walaa adeerkiisa loo qabanin facebooka iyo waxyaabaha social media dhibaatadoo keen waxaa ka mid ah inaan qabiilka lala jahro aan lala cabsanin oo caayda lala jahro imaanayso diinta dhinaca kale looga dhaco dad waxaa imaanaya soomaaliyan anaga boqolkiiba boqol muslina ku faannaa dadaa imaanaya wuxuu ku leey ninkan karishtaan wey gabadhan karishtaan wey mida wuxuu leeyahay halala doodo war karishtaan maxaa lagala dooda yaa la doodi karo cilmigeeda maa leedaha ku doodid maya dhinac wuxuu ku dhaha maanta nin karishtaana la dooday markaad dhegeysay doodahooda waxaa arkaysaa kan wax kasaxaya ka qaldan mararka qaarkood maxaa yeelay diintuu fasaad u keenay su-aalihii ula raban kama jawaabi karo hadhowna waxaa laleeyahy marka diinta laga adkaaday lagama adkaan ninkan jahelka laga adkaaday maxaase nin oo diinta ka baxay maxaa u buubuuninaysaa maxaa magac ugu yeelaysaa maxaa u qaadqaadaysaa hadduu rabo inoo doodo masaajid ha tago masaajid meeshuu magaaladu degay masaajid ha ku yaha ha tago culamo u taga culama la hadlayso wuxuu haya keeno laakiin intuu inuu yimaado qaara heese iyo qurun iyo ayaal imaanay billahi calaykum war soomaaliyey haddaan isqabanin arrimahaas hadda iska qabanin oo diinteena aan u laabanin maxaa weye fasahaada imaanaysa fasahaadiisa waxaa ka mid xishoodkee laga tegey alxayaau min addiin diinta u dhibay halkaas ka dhibay facebookan iyo ismailka dhan waxaa arkaysaa xishoodka laga tegey gabar gurigeeda nin ugu asturneed ay snapchat waxay ku leedahay iyadoo qaawinay inay soo gashato waxay ku leedahay ani nin fariin lama ihi gabaray u tahay yaa damaan qaaday masara isku diray xayaaga aawey alxayaau min addiin shucbatu min aliimaan uu nabig waa qeyb kamida uu leeyahy in lam tastaxyi ina mima adraka annaasu nabi wuxuu leeyay nubuwatu waxaa kamida laga helay man lam idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta war haddaad xishoodka ka tagtay oo aad timaadid oo maantana inaad doodid aad ratid oo maantana in lagu dhegeysta aad ratid oo gabar kasta life isuu galayso oo oday kasta life isuu galayo oo xumaan le laga hadlaayo akhlaaqdaas goormee marka waddanka goormuu hagaaga xataa daarta hagaag u ratid maantana xumaana laga hadlaya markaad aragtid meelaha xumaanta laga hadlo qof malaayiinaad daawanayso maxaa dhacay waxaa laga yaaba qolada facebook waxaas inay xataa tirada ugu daraan si loo tashjiiciyo gaalaha xukunta waxaan laba malyan ay daawanaysaa leeda lakin waxa laga yaba 10 qof aa ku daawanaysa lakin igaa malyankaaga dhigay waa kaaga dhigi karaa dadkaas maxaa dhacay laakiin markay meesha wax khayr ka socdo waxaa laga yaabaa in lagu yidhaho dad yaraa ku jiro dadaa waxay raadinaya meelaha dadka badan ku jiro ay galayaan aalad waa waxaan aalad waa jaajuus adiga laga waxaa laga warhaya cuntada la ogsoon yahay adaasoo gelinaya leena meesha maraysa la ogsoon yahay adaasoo gelinayo haddaa dhar cusub gadataa lagu ogyahay tukaanka maamaha faransiisa jirta wuxuu ku dhehayso maamaha faransiisa hadda kor nin saaxiibna ahno sheekh ay wuxuu ugu yidhi
waxay leedahay u yidhi akhbirnii mima taakul akhbirka man anta saas waa carabi ahaan u akhriyey wuxuu ii sheeg waxaa cuntid waxaa taa kuu sheegaya waxaa tahay kuu sheega walidaalika marka hadda supermarket wax gadanaysa lagu dhahay kaarkan qaado ha lagugu marsiiyo maalin kasta cuntada la ogaanaa wax kale lama rabo bes aad waxa leedahay bonus lagu siinaya waxbaa lagugu talagalay laakiin maanta maxaa gadatay bariis rooti waa marsatay biri maxaa gadatay bariis rooti waxaa dhan lagu soonyaa bariis iyo bariis shakhsiyadaada taxliil lagu samayn karaa cunadaada waxay ka tarjumaysaa shakhsigaa tahay adduun dhan wada jaajuus noqday oo maanta dhan isku saladan yahay oo lees wada maqlaayo aadin waxaa leedahay maalin kasta intaa jooga halkaana taaganahay intaa ka baxa leedahay waariya adoo isdhahay dadka ku arkaan ma fahmin aniga waa kuwa snapchat-kan la hadlaya oo weli idoo qaawanaysa u gelinaysa gabadha make up waxba inay soo turugo filter iyo waxba inay soo samaysato ay qurxi leh isku yeelaysa qayaana ku jirto xataa gabadho badan is qurxiyey waa mushkilo qayaana wey quruxaan lahayn haddaad dadka ka gadid waa qayaana alqish man qashana falaysa mina qishka ma banaano nabiga yidhi alayhi salatu wasalaam qishka ma la ogola marka lifekaaga hortimaada waxaa leedahay qofka ma bahan qofkaa bartaba ilan maanta dhan filter iyo waxay iska wadiyey make iyo waxba ismarinaysa aalada ku mar ewel dadka ku mari jira aalada ku marinaysaa layiri ayada ku marinayso idan musiibaha soo socoto waxyaabaha kale oo intii waxay tahay mulxidiin iyo diintiya dadka ka doodayo waxaan leenahay marka gabagabadii way xalaqooyinku waa noo soconaya insha allah marka waxaan nidhi diinti ayaan weli ku jirnaa arrinta diinti ahayd social mediaha dhib weyna ka yimid marka waxaan leeyahay dadka war ilaahay ka baqa war hadalkaad qoraysaan macaasida ha ku jahrina macaasida idoo xaaraan ah inaadoo jirkaaga bannaan ee dad nin ajnabi ku arkay idoo xaaraan ah hadday 100 qof ama 100 kun ku aragto waa dembi ka weyn waa ku jahartay ama waa iclaansatay ka annaga adoo dhahay waa ilaahay maxay iga qaadi kartaa jirkayga ana allah waa faafsan adoo dhahay ilaahay wuxuu ku jirkaaga astur isqari adnu caleeda maya dadka dhan hay arkaan koow aafadaas kama tahay marka diinta arrin ma banaano walidaalika nabiga calayhi salatu wasallam wuxuu yiri ilaahay waa dembiga aad alla xishootay dembiga xataa marka dadka kala xishooto dembiga galaysid haddaad la dhuumato ilaahay waxaa laga yaabaa inuu ku cafiyo laakiin markaad dadka dhan tusto dembiga aad tirahay arka waa kana aad tiraahda ilaah wuxuu leeyahay ila almujaahiruun dadka mujaahiriinta oo dembiga ku faanaya wuxuu ilaahay ma cafinayo marka ilahay naga dhigi kuwa na cafiyo dhibkaas iyo dhib kale ay jira ka fara badan ilahay waxaan ka baday xaqa ilahay na tuso wax haddaan qalda nafta iyo shaydaani ka ahaad haddaan saxna tawfiiqda ilaahay subxaanaka allah waxamdu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayh allahi wabarakaatu